ku soo dhawow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabanayaan noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maalgelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan Ramadaan Kariim dhamaanba daawadayaasha barnaamijka ku taxan ee sida tooska ula socda waa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo uu soo qabanqaabiyo bankiga caalamiga ah Premier Bank sabarkaasina bisha barkisan Ramadaan ugu talagalay in dadweynaha afka Soomaaliya ku hadla iyo guud ahaan dadweynaha kale caalamka ku sugan ay ka faa'iideystaan waxa barnaamijka toddobaadkan ku tartami doona labada jaamacadood ee Francis Fanon iyo jaamacadda New Generation waa laba jaamacadood oo weyn oo runtii caasimadda Hargeysa ka tirsan labada jaamacadood waxaan si toos ugu gudageli doonaa bal adeega bulshada ku tartami doonaan waxaan isku soo dhaweynayaa barnaamijka qaybta horeysa ee tartanka New Generation iyo Francis Fanon waxaa hadda soo gelaya xarunta tartanka ardaydii ka socotay jaamacadda New Generation waxaa iyaguna hadda soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu nahay arday ka socota jaamacadda New Generation kuwaas oo ka qayb galaya tartankan ay uu maalgelinayo banka Premier Bank oo aan uga mahad celinayno fursadan uu na siiyay maal dahabiga ah aad iyo aadna u mahadsan magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabshukuur Siyaad ka socda jaamacadda Francis Fanon waxaan nahay arday ka qayb galaysa barnaamijkan tabarucaadka ay bulshada loo qabanayo waxaan aad ugu mahad celinayaa cid kastoo ka soo qayb qaadatay barnaamijkan oo ugu horeeya Premier Bank iyo jaamacadda Badar oo ka qayb qaadanaysa isku xirka ardayda aad wad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markana tartamayaashu iyaga oo wada socda ama wada jira ayaa waxay u socdaan dhinaca ama madasha uu ka dhacayo tartanku isla markaasina halkaasi waxa uu Professor Mubaarak Aaru ku guddoonsiin doonaa waxyaabaha ay ku tartami doonaan bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada tartanka adeega bulshada oo runtii maanta aynu qabanayno ardayda jaamacadaha dalka waxaad ku tartamaysaan sidii bulshada dalka aad ugu qaban lahaydeen adeeg waliba bulshada aad u qabanaysaana waa bulshada runtii u baahan in wax qabad loo sameeyo marka tiimkiina waxaad kala socotaan laba jaamacadood jaamacadda soo baxda waxay u wareegaysaa wareegga labaad bay gelaysaa wareegga labaad cidda ku guulaysataan oo wareeg saddexaad oo ka finalka bay gelaysaa waxaan rajaynayaa insha Allah inaad guulaysan doontaan balan weydiiyay maxaa filanaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Wardaa waxaan ka socdaa jaamacadda New Generation waxaan ka filanayaa barnaamijkan aan si fiican aan waxa weyn yani aan ku qabanay bulshadeeda jaamacadda iyadana aan magac iyo sumcad badan u soo jeedno insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xanaan waxaan ka socdaa jaamacadda Francis Fanon FFU waxaan rajaynayaa guul insha Allah inaan wax u qabano si loo diro insha Allah okay ko hadii dhibay waraaqihii qoro okay furo waraqaha oo akhriya bismillaahir rahmaanir rahiim tartanka adeega bulshada waxaad ku tartamaysaa in hal qoys oo danyar ah aad u abuurto ganacsi lacagtaad haysataan waxay ku jirtaa shaqada waxaad haysataa 24 hours saacadaha oo ka bilaabmaya imika waqtiga la dhigo waraqada okay hadda waxa idin bilaabmaya tartanka adeega bulshada waxaan idin rajaynayaa shala gobonimo waxaad haysataan waa 24 hours baad haysataan ood ku dhamaystiraysan hawsha la idin dirsaday tartamayaashu waxa ay bilaabeen inay qorsheeyaan maareynta hawlaha laga rabo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah gudoomiyaha iyo cidiinoo laqanay si group oo yeesho qof fellowship nagu sameeya marka maxay la tamsado maxay ku dhata أنا حلتين هذه اللي قاعدين مستوى أنا حنا سكالات سكولات مستوى لا قديم مستوى لا قديم ها لبدين نسكول عنه مرات waxaan u baahnay gudoomiye in haga oo wuxuu aynu isku raacna inagu hagaajiyo isaguna de amarkiisa qaadan hayaan ka dhiganaa marka la horta anigu waxaan shakhsiyaanteeda inta najix anigu niyadeyda waa ku jirtay
bas weeyaan inaan noqono way gudoomiyana najax baynu ka dhiganaa haddaanu soo galno guluufka maxaa bixinay magacaad magac aduu danyar wax ku dar soma minaa waxaa qabano wax ku saabsan soo danyar maadaama ku saabsan yahay wax usoo dhowdhow la foomo danyar kaa badan karina caadi si wacan soma ma jiro urur jira adduunyada oo bilaa magaca marta ma helin marka waa inaan magac helnaa aynu kaga soocnaano ururada jira waddanka ee dadka caawinaya marka adi maxay kula tahay sar magaca inaynu ka dhigano anu waxay leeyahay inaan ka dhigano il naxariis maadaama hooyo baahan wax u qabanayno marka hawsha seen waan wada malaynaysaa noqon fikradii iska yar ururina okay hawsha soo qaban waxay noqon kartaa haddadan inaan u baxno suuqa kadibna qofkayna ka aragno inuu u baahan yahay caawimo ama dee shaqaysanayo usoo baxay shaqo aynu dul istaagno kadib waraysano waye waxaynu u baahannahay halkan hooyadu ku taglaan ka soo qabanay hooyadii baahnayd aynu rabnay inaynu wax u qabanaa halkeenu ka keennaa si halkeenu ka raadinaynaa hooyooyinkaynu aragnay ee suuqa jooga hooyooyinkay ka muuqato yacni dayactir badanna u baahan ayaynu eegna ama baahiyadu ka muuqato marka waxay noqonaysaa inaynu iminka baxno aynu suuqii tagno falanqayntii ay sameeyeen kadib waxay tartamayaashii ku dhaqaaqeen howlihii u qorshaysnaa waxaanay bilaabeen inay baabuurtooda fuulaan markana tartamayaashii ka socday jaamacadda new generation ayaa waxa ay bilaabeen raadinta ciddii ay adeega u qaban lahaayeen geestoodana iyaguna tartamayaashii ka socday jaamacadda francis fanon ayaa iyaguna bilaabay raadinta ciddii ay u adeegi lahaayeen kooxda ka socotay jaamacadda new generation ayaa helay ciddii ay u adeegi lahaayeen halka tartamayaashii ka socday iyaguna jaamacadda francis fanon ay heleen ciddii ay adeega u qaban lahaayeen ciyaalkeeda xaafadda wuxuu siiyaa intaan ma siiyaa intii shalay laga iibsaday day waxay hadheen intaan ma wuxuu siiyaa meel kale aniga waxba igama soo galaan deetana maasha allah ilaahay baa waxaan wanaagsan yahay xagga ilaahay marka laga eego laakiin dan yar baan ahay inaan waalan baan haystaa ciraashku ku xidhan yahay aabiina waa nin jilicsan oo haddii badankada le isaguna odayo waxba ahayn hooyana ma laha waan hayaa wuu wanaagsan yahay anna xabad baan hayaa xabaddu way iska wanaagsan tahay ilaahay mooyaane aadamo kale nooma shaqeeyo inta ahay markana tartamayaashii ka socday jaamacadda new generation ayaa waxay iibinayaan agabkii ama alaabtii ay hooyada ku caawinayeen geestoodana tartamayaashii ka socday jaamacadda francis fanon ayaa iyaguna markan waxay iibinayaan agabkii ay ku caawinayeen islamarkaasina ay uga adeegayeen hooyada ay doorteen markan tartamayaashii ka socday jaamacadda new generation ayaa hooyadii ay caawinayeen ee ay doorteen waxay ku wareejinayaan alaabtii ama agabkii ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan
dhinacoodana tartamayaashii ka socday jaamacadda francis fanon ayaa iyaguna markan waxa ay la kulmeen islamarkaasina ay agabkii ku wareejinayaan hooyadii ay doorteen inay u adeegaan in yar oo milixa hayay oo inoomadii ka baxaya jaamacadda ay ii sameeyaan hanti fiican oo wanaagsan waa ku mahadsantihiin bangigii soo maalgeliyana waan mahad celinayaa waxaa madasha tartanku ka socda soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda francis fanon markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada mubaarig ibraahim aar waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada mubaarig waxa uu guddoomiye ku-xigeen hore uga ahaa jaamacadda hargeysa iminkana waa guddoomiyaha jaamacadda beder waa kuma ismaaciil aadan meecaad ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee maasterta ka dhammaystay jaamacad ku taalla magaalada london ismaaciil waxa uu muddo dheer wadamo kala duwan oo yurub iyo waqooyiga ameerika ah ka soo bixiyey tababaro la xidhiidha horumarinta bulshada ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada boorame ee loo yaqaano boorame job center axmed cali xasan waa injineer master of science development studies waxa uu ka qaatay jaamacadda hargeysa waa wasiirkii hore ee cadaaladda somalilan waxaa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka waa tuma nuure maxamuud cumar waa gabadh lugaha naafa ka ah waxaanay muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha bulshada iyadoo guddoomiye ka noqotay ururka naafada somalilan SNDF waa beeraley ganacsigana ku jirta ugu dambeynna waa kuma cabdirashiid yuusuf gaaxnuug waxa uu maaster culumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Uganda sidoo kalena waxa uu maasterta labaad ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Suudaan waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay'adda African Relief bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabshukuur Siyaad ka socda jaamacadda France Fanon bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabshukuur Siyaad ka socda jaamacadda France Fanon University aniga tiimkan hareeraha iga taagan waxaan ku tartamaynay inaan hooyo dan yara ama qoys dan yara oo suuqa la wareegta alaab aan u sameeyno ganacsi marka kulay goob gaaban hadalkeedna gaaban baa leeyahay barnaamijkaasi toos oo wada galaya marka ugu horeysa waxaan ka bilownay kow inaad wixii lagu dira aad hesho kaasoo aan ku xulanay kriteeriyadiina loo calaamadiyo oo ahayd kow inay suuqa la wareegto ayna tahay ruux dumara oo ay ahayn qof fixed ah laakiin ay socoto marka waxaanu sameynay waqtiga aadna ugu yaraa oo 24 hours ah halkan aan ka tagnay 6 pm ba inaan sii helno qofkii si aan hawsha u bilownaba markaan halkan ka tagnay waxaan bilownay inaan qofkii helno alxamdulillah qofkii waan helnay anagoo waliba kriteeriyadii aan loo dejiyay raacayna maama ayaan helnay suuqa alaab yar ku iibisa ganacsi aad u yar oo ay kamid yihiin waxyaabaha lagu kelin gareeyo guriga mafiiqaha iyo milixda iyo saliidda markii aanu bahalaynay aan helnay qoyskii waan iska tagnay subaxii 6 am ayaanu bilownay hawshii taasoo aan markii hore isku qaybinay laba tiim marka maamadu waxay haysatay kaaryoon marka alaabta si aan u saarno khasab waxa inaanu samayno marfash ama waxa loo yaqaano miis ay alaabta dul saaranto kadib laba tiim ayaan isku qaybinay tiim waxa uu alaabtii ayuu doonay iyo sidii uu soo qiimeyn lahaa tiimkii kalena waxa uu doonay inuu furniture-ka tago oo alaabtii soo bahaleeyo inankii baan soo kaxaynay alaabtii miiskii baan tusnay si aan u bahaleeyo inta uu qaadi karayo waxaan ku noqonay meeshii alxamdulillah waxaan samaynay bahalkii ugu dambeyn tiimkii kalena alaabtii ayay dooneen alaabtii markay soo dhameeyeen alaabtaas oo aan ku xulanaynay kolba maamadu 3 qodob ayaan alaabta ku xulanay maamadu soo iibinay kow inay noqoto alaab ka socon karta oo inay ahayn wax ku taagnaanaysa taas oo ku eegnay deegaanka ku hareersnaa maamada oo ahaa deegaan bagaashka ama alaabta sida kabaha oo kale dacaska loo isticmaalo inay kale alhamdulillah waxaan ciyaalka hablaha loo xidho kale lagu iibiyo talabaad oo inay ka socon karto alaabtan oo inay ahayn si maamadu ay u noqoto waxay ka faa'iideysan karto ilaa nolosheeda inta ka harsan tastaxaad oo ahayd inaanay noqon alaabtani alaab ay ku cusub yada ay noqoto alaab ay ama ka ag dhoweyd markii hore ay garan karto
haddii markaa la geeyo qalab dhismo waa qof dumara ma garanayso. markii aan alaabtii soo iibinay annagoo astaamahan soo sheegay ku xulanaynaa waxaan soo bahalaynay waxaan keennay meeshii farniturkii qoladii kalena way keentay sidii baan alaabtii ugu bahalaynay oon ugu camirnay miiskii. alaabta lacagta ku kacday waxay ahayd lacag ah $397. lacagtan loo dhiibo markii hore ahayd $700. annagoo ka duulayna markasta inaan alaab wanaagsan u samayno maamada lacagtan loo dhiibayna aanan u khasaarin oon si wanaagsan u maamulno. inahaasan kusoo koobaya aad baad mahadsantihiin. anaa su-aasha ugu horeysa bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin. eeg waxaa suuqii markii aad tagteen waxaad moodaa inaydaan dumarkii suuqa fadhiyey inaydaan kala xulanin, kadibna hooyo keliya huunoo idinku soo horreysay uun iyada aa ku qanacdeen. markaa waxaa sababta maxay hayday aad dumar badan oo suuqa fadhiya aa u mari weydeen ilaa suuqii time badan idinkama qaadayo, aad dhowr dumara aad isugu mari weydeen idinka oo weliba sii xog waraysanaya. hooyo agoonaa jirta oo keligeed maxay hayday carruur korsanaysa, hooyo ninkii ay kala tageen baa jirta oo iyaduna keligeeda maxay hayday. markaa miyaanay habboonayn intaa mid keliya markaa la kulanteen un keeriyoonkii horreysay qaadateen inaa maxay hayday sababa ku xulataan oo in fursadda siisaan dumar waxoogaaya. aad u mahadsantahay maamo. aan ku yaro sax halkaa qof keliya noogu horreeyey maanaan dooran. ilaa muddo 2 saacadood ku dhow ayaan wareegeysanaynay annagoo weliba qof kaloon u tagno ama maamo kastoon u tagno aan warbixin ka qaadaynay. maamadaan u tagnay warbixinta ka qaadna waxay ka mid ahayd inay tahay hooyo haysata 2 carruura oo aabahood dhintay iyo weliba inaan xanuunsanaya oo iyada walaala yihiin. muddo 13 sanaan ay ganacsigan kusoo jirtay. waayo waxaan ka fikiraynay inaanu ahayn qof wixii ku cusub imika oo haddaa imika loo sameeyo wixii ka baabi'i karo si qof khibrad u leh ganacsigii uu noqdo. okay anuu su-aashaan idin weydiinaya waxa weeye lacagta laydin dhibay mise ahayd lacagta $700? lacagtan loo dhibay $700. alright lacagta aydun markaa ugu samayseen ganacsiga waa mise? lacagtan ganacsiga ugu sameynay waxa weeye $397.30. markaa lacagta soo hadhay intii soo hadhay maxaad ku samayseen? intii soo hadhay waan celin waa xasaan sheegnay maamulka aan la soo hadalnay waxa la yidhi waa la soo celinayaa lacagta waxaan ugu talagalnay inaan soo celino. waad celiseen markaa lacagtii? haa. imisay noqonaysaa? $302 iyo $3.63 ayaad celiseen? ayaan celinaa. marka hore maan laygu talagelin $700 ba inaad ku maalgelisaan maan laydinku talagelin? waa sax waa loogu talagalay inaan ku maalgelino. markaa maxay saab ku dhacday inaad celisaan lacagtii? waxay ku dhacday maadaama kriteeriyadii ay noo buuxisay maadaama marka horena ahayd waxaan loo dhibay microfinancial ahayd oo marka horeba $500 sida maalgelinta lagu bixiyay tayba. waa ta kale waxaan kale aanu intaa lacagta intaa lagu soo celinay tahay sababteedu miiskaanu sameeynay awgii oo fara badan oo alaabtii $700 hadii la geliyo aad alaab $700 way fara badan tahay. miiska awgii noo qaadi weeday maadaama maamadu aan fixer ahayn ay soconayso. waa ta kale inay maamadii riixan karto haddii ifan ay ku dhacaan waxyaabo ay la dursaan in amba dawlad hoose amba cid kale ay timaado inay maamadii riixan karto wixeedii ay la baaxisay firgaraysan karto. su-aasha ugu dambaysa idin weydiina waxa weeye ma hal suuqun baad ka xusheen hooyada mise suuqyo badan baad tagteen? horta waa run hal suuq baan ka xulnay suuqan hoosaan tagnay maadaama waqtigu aad noogu yaraa markii aanu halkan ka baxnaanu suuqa hoose tagnay. suuqa hoose magaciisa maxaa leedahay? ya xagan hoose waa heen. waa heen de haa. waayahay ha imise maamaad la kulanteen ood ka xulateen markaa? bismillahi raxmaan raxiim waxaan la kulannay dhowr maamo. 10 baan la kulannay. dhowr hay odhanay imisaad la kulantay? ha aan mid walba nolosheeda ka wareysanay. waayahay waxaad sheegteen inay wareegayeen taad iminka la kulantay ma meel baad sidee baad markaa haddana ku heshay eeg markaad tobankii markaad xog ka soo ururiseen oo aad daato soo ururiseen soo meel maydaan fadhiisan oo daatada maydaan analyse garayn oo markaa decisionka maydaan qaadan marka maamooyinku xaggee idin taagtaa meel looma taagna maamooyinku laakiin mid walba meel bay wareegtaa oo waxaan aragnaa iyadoo meel wareegaysa oo tagnaa waan wareysanaa inkastoo caqabada nagala kulmeen oo lagu dhaho ciyaal baati wax ma caawin kartiin waxba naguma darsan kartiin markii dambe maamada waanu helnay oo wayna aamintayadu ka bacdeen markaanu imanay maamadii
lambar baan ka qorannay subaxaan ballannay kadib saasaan ku helnay hooyada waayay su-aasheeda kale ee uu idin weydiiyey professor cabdirashiid riisankaad bixiseen lacagta aad soo celiseen eeg lacagtaad kharash garayseen iyo taad soo celiseen olmos waaba isku dhow yihiin lacagtanna dee waxaa loogu talagalay inay gasho dadka danyartaa riisankaad bixiseen iminka waxa weeye keeriyoonahe mid ay keeriyoone ay riixan karto dee inta markaa keeriyoonaha saaran inta kale soo istoorba ma dhigan ama gurigeeda ma dhigan karteenoo marba intaas waa si fiican su-aal fiican weeyaan kolley intan aan saarnay un maaha alaabtu waxay leedahay reserve baan u samaynay kartoon weyn oo reserve ah oo alaabtan aan usoo iibinay maaha in kale oo reserve oo ay ku ridan karto hadhow markay tani ka dhammaato marka waxaan horta ugu talagalnay si uu sheegay Mustafa inuu horta kolley socon karto waxay qaadi karto uu noqdo talabaadoo ah in waxan ay ka socon karaan haddaanan waxayna ama areada laga iibi meesha ay fadhiday ahayd meel ay laga sii baxayo suuqa marka alaabta kolley inta badan wax alaabta waxaa la sii suuqa laga sii baxayo waxaa la qaataa oo kale inay wax dacaska oo kale ayaa ka mid a markaa saas taan ku xidhanay baa taas ahayd hal su'aal aan weydiinaya mahadsantihiin oo la xidhiidha xulashada alaabta ma idinkaa go-aanka gaadhay alaabta aad soo iibinaysaan mise ayadaa tala ka geliseen inay horta saddex wax baan ku xulanay alaabtan soo iibinayno go-aanka gaadho ma rabaa ma tala aad ka geliseen ayada mise idinkaa go-aanka gaadhay waxyaabaad soo iibinaysaan labadaba ha iyada lafteeda waan weydiinay yes waxay u baahan tahay iibin karto waxay ka socon karaa dee ay iibin karto ayaan ka talagelinay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو جروب كإلنا حريص جروب وكسر جامعة النيو جنريشن وكتر تمي هالأبور ترتن كهذا قبل شدة وكقريب جلي وأبور هو يباهن كنعسي مركها وحن وقبل أنا وترتن كا سمين مركي هبين مدي هل كان أنا كبحني إن السوق واهن سوقنا وين واهن أنا كبعض قابنه هو باهن ودنير oo bulsho ay ka dambeeyo qoys ay biiliso marka waxaan ku dooranay saddex arrimood oo inta koobaad tahay inay marka hore tahay hooyo baahan qoysna ka dambeeyo talabaadna ay tahay hooyo meel ay fadhiisato marka position ay haysato maadaama aynu ognahay in dawladdeenu ay inta badan suuqa danyarta wax la wareegaa ay ka daadiso geyso dawladda marka meel ay lagu soo hagaagay inay lahaato fadhido maadaama lacag badan oo $700 aan ku maalgelinaynay oo inay la warwareegi kareen markaanu soo raadinay gabadhan sifadii saddexaad aan ku sii dooranay waxay ahayd hooyo 6 caruura oo haysata oo ahayd hooyo qaxoonti ku ahayd dalka Yemen 20 sano ugu dambeeyay iyada oo wadanka ku soo noqotay intii burburkii Yemeneed ay burburtay marka ka baahi badan hooyada hore u sii joogtay ee garanaysa ahwaasha wadanka markaasi ka bacdi markaan u baahi galnay aroornimadii annagoo groupkeego dhammaystiran oo habeennimadii gabadhii halkaa kaga sii tagnay waanu soo noqonnay waxaanu garannay inaan qofka haddaad ganacsi cusub u abuurto una garanayn marka hore inay ku dhib badan tahay inuu fahmo intuu la qabsanayo intuu suuq helayo laakiin waxaanu eegnay waxyaabahay iibin jirtay oo ahayd waxyaaba marka hore miiskeegii oo dhammaystiran aanay wax badan dee ishu ayna qabinayno wax lagu muuqdo dadkuna waa ilku garatay aan waxba laga garanayn oon cidna dee arkayn oo haddii one day maalinta la wada iibiyo waxa meesha u saaran ayna 6 qof qoys ay u maamusho ayna ku wada filnaanin kabacdi markaa suuqaanu galnay annagoo bagaash waxay iibinaysa markaa dhar yar ka qornay waxay u baahan tahay oo dhan suuqa galnay markaa u soo wada iibinay waxa la yaaliyo wixii alaab ay u baahnayd dharka noocyadiisa kala duwan oo kuwa dumarka u badan iyo bagaashka noocyadiisa kala duwan annagoo marka horena xaaladdeeda waraysanay macnaa dadkii ku hareeraysnaayee ku ganacsanayay oo nooga markhaati kaceen inay tahay gabadh baahan oo dhulka iska taala marka sababtaasaanu ku dooranay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم واد مهدسنتهين
markaa lacagtii ma alaabtii baa u wada geliseen mise waxbaa ka soo reebtee bismillahi raxmaan raxiim waan isku baalaas garaynay lacagtii iyo baahiyeedii waxaa noo soo hadhay baa $12 quraata waa si wanaagsan dareenkeedu sidee buu ahaa iyo siday ugu qanacday ama talada uga maxay hayday taladan uga qayb qaadatay markii maxay hayday aad u tagteen aad wareysanaysay markii dambe macnii ay guuleysatay wixii baahiyaheedii la daboolay dareenkeeda iyo businesskeedani siduu u sii jiri karayo sideebay u ahaa dareenkeedu bismillahi raxmaan raxiim su-aasha haddaan isku dayno inaynu ka jawaabno horta qof walba marka loo tago markii ugu horreysay horta u tagay inuu wareysanaynay kadis bay ku ahayd oo inta badan dadkeena waxaa soo gala dad idhaahda lacag sii keen kabacdina aan ku maalgeliyo dhowr jeer waxay nagu celcelisay ma wax lacaga aniga layga baahan yahay markaan u sheegnay ma hooyo wax lagaaga baahan yahay ma jirto haddana in yar markay aamusnaatay haddana su-aashii laftirkeyga nagu soo celisaa maalinimadiina markaan u soo galnayna waxay kadis ku noqotayba inay sheegan kari weydo mararka qaar alaabihii ay u baahnayd dareenkeeda oo qof baahan oo dhulka ka soo qaaday inta badan waxa la yidhaha qofka waxa badan marka loo geliyo ka naxaa moogta inay mararka qaar waxba sheegan kari weyday oo waxyaabaha iibin karaysa dumarkii jaarkeeda ku ganacsanayay ay iyaga noo sheegayeen waxyaabaha u baahan tahay marka dareenkayga baahideedu halkay taagneed halkaasaad ka cabiran karaysaa taasoo annagana nagu sababtay inaan mararka qaar dee la ilmeyn gaadhnaba anigu su-aashaan idi weydiina waxa weeye hooyadaasi waa qaxoontigii ka soo qaxay baad tidhahda yaman 6 carruuray markaa haysataa markaa 6da carruura meel kaloo waxay ka soo galaan ma jiraan aabbo shaqeeyo kale ma jiro carruurta ma carruurwada weerarba mise waa carruur iyaga laftigooda shaqaynaya wax soo saar iyaga laftigoodu la dee bismillaahi raxmaani raxiim hooyada 6da carruur haysataa waa hooyo 6da carruur iyadoo aad keligeed ay yacni baahidooda ay yacni kofar garayso aan cid ka dambaysa ama aabbo ama meel kale ay ka soo gashaa wax kale oo ganacsiga aanu jirin waayahay annaha haddaba su-aashaan idin weydiinaya waxa weeye haddeer waxaad sheegteen halkan meeshii laydinka diray inaad ka baxdeen imisadii baad ka baxdeen toddobadii fiidnimo dabeedna toos baad suuqii u tagteen sida aynu caadiyan ku naqaanana hooyadu habeenkii ma wareejiyaan hooyooyinku suuqa habeenkii waxba ma wareejiyaane maalintii bay wareejiyaan markaa ma isleedihiin qofkii barobarka ah ee yacni saxda ahaa haddaad subaxa tegi lahaydeen intaad intaa iska sugtaan subaxa aad tegi lahaydeen baad heli lahaydeen hooyooyinkii dhabta ahaa ee aad kala xulan lahaydeen muxuu ahaa si fiican aad oo aad dad badan ka qayb gelin lahaydeen waad mahadsantahay su-aal fiicanna waadna weydiisay horta toddobadii markaan halkan ka baxnay sida imika caadadanu naqaano suuqeennu berigii hore 3da laga bixi jiray laakiin imika mararka qaar bay waagu de inay qaar ugu dilaacay yar u jirsadaan laakiin hooyooyinkan u tagnay een anagu markaa helnay inta badan waxaad ka hadashay hooyooyinka wareega ayaadna weydiisay waana kuli lacagtaanu gelinay marka hore waana kuli position baanu marka hore ku xidhnay inay hooyo meel fadhida tahay hooyooyinka wareega haddaan $700 alaaba u dulgelinno oo berri toole dawladdu ka daadisay yaa damaanad qaadaya lacagta halka gashay khasaaraheega laakiin waxaan rabnay hooyo lagaga warhayay halkay fadhido inuu ganacsigeegu hirgalay inay ku khasaartay iyo inay faa'iiday markaa ugu yaraan 8 dumar ah oo suuqa dhexdooda fadhiyey ayaanu waraysanay iyaduna waxay ahayd tii ugu baahida badnayd waayo su-aasha labaadan idin weydiinaya waxa weeye waxaad tidhahdeen suuqa waaheen baanu toos u tagnay imise suuqa dumarku ka shaqaystaan baa ku yaalla hargeysa waanu ognahay suuqyada hargeysa ku yaalla maxaa kii idinku dhowaa uun meeshii laydinka diray kii ugu dhowaa un baad iskaga bilowdeen mise iyada lafteeda dee waad qiimayseen suuqyada iyo maxaad ku xulateen waaheen waaheen waxaan ku xulanay waa suuqa ugu yacni tirada badan ee dadka ugu badan ay u soo baxaan anid ku ogaan karta inta qof macnaa qofkii baahnaa uu imaado si uu baahidiisu kafargareeyo sababtaan ugu dooranay suuqa waaheenna waxaa weeyaan inay dadku ku badan yihiin dadka baahanna ku badan yihiin halkays odhan karaan dadka baahan waxbaad ka heli kartaana ay tahay suuqa waaheen goorma dhammaysteen shaqada waxaan dhammaynay 3dii oo xeer la 3dii goorma ahayd markaan aroortii 6dii barkii suuqa soo galnay
lixdii barkii maydaan soo geen toddobadii fiidnimaad soo gasheen markaan ku soo noqday aroornimadii saddexdii xeerla ayaanu ka baxnay waxaan weydiinaynaa laba su-aalood oo isku mid ah tiim walba laba su-aalood danyarkaab maxaad isleedihiin caawa baad guul kaga qaadi kartaan kooxda kale ee aad la tartamaysaan oo aad isleedihiin waad kaga duwan tihiin oo waad annagu waxaanu kaga duwannahay gruubkan kale xagga faynaaska hadday noqoto faynaaska annagu waxaanu sida lacagta aanu u isticmaalnay waxa weeye si aanu annagu leenahay oo kale waayo maxaad isleedihiin baad ku dhici kartaan oo caawa in guusha laydinka helo xaggee baad isleedihiin bay idinka iman kartaa guuldarradaas iyo shaqadiinnii khuseeya ta kale aan isleenahay waad kaga hooseyn kartaan waa inaanu alaabtoo kale kala duwanaano oo ay naga alaab fiicnaan karaan ama waxa ay sameeyeen naga wanaagsanaadaan waad maqlayseen labada su-aalood ta hore su-aasha hore ah maxaad isleedihiin baa caawa guul idiin keeni karaa madashan aad tartanka u soo gasheen oo aad isleedihiin baad koobkaad ku qaadi kartaan caawa horta guusha iyo guuldarradu shaqadiinnii khuseeya aad soo qabateen waaya horta guusha iyo guuldarraduba xagga ilaahay bay ka timaadaa laakiin horta ta guud aanu is leenahay gruubka waad kaga guulaysan karaysaan horta lacagta laftarkeedii annagu qofkii wax muuqda oo meel ka soo jeedsadoo indha ay qabtaanba ilka gooyaane oo magaaladu ay ku soo jeedsanayso iminka dadkii dee u wada khushuuceen meesha taagnaa ayaan u gelinay ta labaadaanu is leenahayna waxa weeyaan ducadii maalintaa dadkii iyadaba ka soo baxayba inuu ilaahay noo aqbalay waanu ka sugaynaa su-aashii kale ahayd failureka guuldaraysataan maxaad isleedihiin baad sababsan kartaan taasa hal mid baanu isleenoo saameyn nagu yara keeni karaysaa iyagu gabadh wareegaysay inta badan eegteen miis bay yara sameeyeen annagu waxaanu kaga nasiib fiicnayn islaantu iyadaa miiskeegii waxeegu marka hore meesha ugu sii yaalla alaabun baanu saarnayn fara badan marka taasi waxaa isleedahay waa weaknesska dira leedihiin miiskaa yara iyagu ay sameeyeen inta kale ha bismillah natiijadii baan ku dhawaaqaynaa aad iyo aad baad horta u dadaasheen dhallinyaro si fiican usoo dadaasheen waad hawl aad ajar ka helaysaanna waad soo qabateen laakiin dee kolley tartan baa lagu jiray oo guusha la wada qaadi kari maayo marka waxaanu ku heshiinay inaanu sheegno tiimka ku hadhay meesha baanu guddiga iyagu heshiis ku nahay marka waxaan sheegayaa tiimkii hadhay waxa weye waa tiimka la yidhaaho danyarkaab ku soo dhowow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabaneenoo noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maalgelinaya bankiga caalamiga ah ee premier bank